السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin akhyaarta packagekan waxaa la yidhaahdaa Amazon package do it for me. waxaan rabaa halkan inaan ku faahfaahiyo packagekan cidda ay qusayso haddii aad bannaan ka samaysato inta ay lacag iyo waqti kaaga bixi kara haddii adiga aad samaysato iyo haddii annaga aan kuu samayno farqiyada u dhexeeyana waan ka hadlayaa shaqada waxay tahayna waan ka hadlayaa. Okay, kow horta yuu quseeyaa packagekan fadlan haddii aad Amazon ku cusub tahay oo markii kugu horreysay ay tahay oo aad horay casharana u qaadan aadan fahansanayn systemkeeda way kugu adkaanaysaa packageka inaad intaa horey ka gadato horey ka bilowdo. waxaa muhiim ah inaad YouTube ka tagto sida Amazon u shaqeysa aad barato ama websitekeena abadriacademy.com intaad tagto koorsooyinka ku jira ee Amazon FBA businesska ah ee Soomaaliga ah inaad qaadato $10 kaliya kaaga bixiso bishii hal bil laba bil waxaa rabtaa intaa qaata iska joojin kartaa kadibna systemka Amazon inaad barato waa muhiim. then markaad barato packagekan do it for me muxuu kuu qabanayaa muxuuna soo gelayaa. tusaale markaad systemka Amazon barato waxaa laga yaabaa inaad waqti haynin waxaa laga yaabaa in luqadda English kugu adag tahay waxaa laga yaabaa in aad mataqaanaa xogaa aad ka caajisto ama wax walba inaad isu keento meelo kala gogooni aad ka samaysato ay kugu adkaato. annagu waxaan nahay team of expert waxaan ka koobannahay qayb websiteyada sameeya logooyinka about us-ka hostingka domainka iibsashadeedii Amazon product raadintii supplierkii Alibaba warshadii raadinteedii alaabta listingkeedii packagekii oo dhammaystiran ilaa in laga gaaro sponsor ad-ka ama Amazon in lagu dhexaysiiyo. waxay ka dhigan tahay packagekan markaa iibsato in shaqada Amazon min bilow ilaa dhammaad lagu qabanayo marka laga reebo laba shay. labadaa shay oo ah furashada Amazon account waxay inta badan u baahan tahay documents. waa inaad documentiisaas aad gacanta ku haysato inta aadan iibsan. sidee ku ogaanaysaa Amazon documentiyada u baahan yihiin? That's why we go back inaad basic Amazon aad barato oo aad taqaano. inta badan haddii aad USA ku nooshahay ID-gaada ama driver license-kaaga ayaa kaliya ku anfacaya iyo social security number-kaaga. haddii aad outside of USA ku nooshahay passport-kaaga oo aan expire ahayn 6 bilood ay ka dhiman tahay ugu yaraan ayaa u baahan tahay iyo bank account. labadaas ugu muhiimsan inta kale waa waxyaalo yar yar oo la xallin karo weeyaan. waa tahay guud ahaan Amazon 4 shay ayay dadka ku xiraan. waa address, waa bank account, waa passport oo documentiga ah iyo car maaragtay lacagta kala baxaan bil walbo iyo bangigana adiga lacagta kugu soo shubayaan. waxaa soo raaca waxaa weeye waa telephone shaqeynayo oo ay kugu soo dirayaan verification code. actually waa 5 shay weeyaan. marka inta badan dadka telefoonadooda haystaan car bangi as long uu Visa iyo Mastercard ku qoran yahay waddanka aragto joog waxa waa international card weeyaan. bangi account waxaa qasab ah inaad ka mid tahay 102 waddan ee Amazon ay approve gareysay bangiyadooda mid ka mid inaad haysato. haddaad haysaninna inaad isticmaasho Pioneer receiving bank account inaad isticmaasho. Amazon Pioneerna way aqbashaa 102 waddan mid ka midna way aqbashaa. sidee ku ogaanaysaa 102 waddan? Amazon accepted seller list baa ku qoraysaa Google-ka 102 waddan ku soo bixayso. intaa marka laga reebo packagekan do it for me adiga haddii aad qabsanayso waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato muddo 4 bil 5 bil ilaa 6 bil sida furashada Amazon listingka productiga supplierka inaad hesho waxyaalahaas oo dhan waqti badan bay kugu qaadanaysaa. haddii aad Amazon courseada qaadatina waa laga yaabaa inaad fahansan tahay waqtiga ay kugu qaadan karto. haddii aad baxdo oo aad ka samaysato fiverr.com upwork.com freelancer.com aad qof hire gareyso hal qof oo shaqada isku wada qaban karo ma helaysid. waxaa u baahan tahay dhowr qof. tusaale qofka website-ka horta qofka website kuu sameynaya wuxuu ku leeyahay soo samayso domain soo iibso hostingna soo gado. domainki waxaa laga yaabaa inay $10 sanadkii kaaga baxdo hostingkina waxaa laga yaabaa $70 $80 inay kaaga baxdo sanadkii. meeshaas already waxaa kaa baxday lacag $90 meesha ugu hooseysan ka soo qabanaya. marka oo la tagto website-ka waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho haddii aan website basic ku sameynayo oo Shopify ah ama WordPress ah ama mataqaanaa
any other platform waxaan kaa qaadayaa $250 average ayaan kasoo qaadayaa marka haddii aan kasoo qaado 300 average inta website-da basic lagu sameeyo ilaa $90 oo kale $390 ayaa hadda kaa baxday weli waxaa ku dhiman inaa about aski contact qoraalka about aska inaa soo qorato loogada inaa soo samaysato kaa rabaa sawirradii uu website-ka ku gelin lahaana inaa la imaato ayuu kaa rabaa qoraalkiina inaa la imaato ayuu kaa rabaa intaas loogadii iyo sawirradii iyo about askina markaa qiimeynay $100 kala kaaga bixiso $490 ayaa hadda kaa baxday welina waxaa taagan tahay website keliya taagan tahay iyo logo iyo hosting iyo mataqaana domain ayaa taagan tahay marka intaa markaad ka soo baxdo Fiverr ku laabatay qof baa waxaa tiri mataqaana product aan u baahanay Amazon aan ku iibiyo tan wuxuu ku dhahay 10 product aan ku soo dirayaa waxa ay siisaa $60 ka qaatay 550 ayaa meeshaas maraysa qofka ugu hooseeyo oo aniga aan Fiverr ka fiiriyay ayaan ka soo qaadaya ilaa $300 $400 dadku dhahayo product aan ku soo raadinayna waa jiraan wax magic bill la yiraahdo oo ay meel ku og yihiin product iyaga gaar ah oo secret oo meel ay ku og yihiin oo ay ku keenayaan ma jirto qof walba waa obvious wuxuu isticmaalaa Helium 10 iyo Jungle Scout labada software ayaa hadda ugu wato oo labadana laba paid weeyaan qof hal product laba product iibinayna kama bixi karo waa qaali weeyaan software-radan waayo Helium 10 kaliya waxay tahay $100 bil walba inaad bixiso saa product u raadiso marka labada software ba anaga teamkeena waa haysanaa annagana waa ka faa'iideysanaa dadka maaragtay kalena waa uga faa'iideynaa alaabaha waa ugu raadinaa waa tahay 500 iyo meesha waxaa maraynaa iyo $50 alaabtii finding productiga maraysa na waxaa ku dhiman inaad mataqaana Alibaba account afurato kadibna mataqaana aad maaragtay alaabtii raadsato na waxaan ka soo booday marka business emailka haddii aad GoDaddy business email ka qaadato waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan between $3 to $5 a month marba mataqaana promotion marmarka qaar ay rangareeyaan $3 to $5 a month haddaad ku dartataad mataqaana topkeeda oo $50 camal business email kaaga baxaysa ayadana waxaa weeye $600 ayaa weli aad maraysaa welina productigii ma aadan guda gelin waxaa u baahan tahay qof kale oo freelancer kale oo productigii supplierkii mataqaana kaaga raadiyo Alibaba sida warshadaha u shaqeeyaan garanayo sida mataqaana gold supplierka trade assurance-ga verified supplierska mataqaana lead timeka shipping costiga airka DPP-ga waxyaalahaas oo qof garanayo ayaa u baahan tahay marka qofkaas laba product average imisay ku raadiyaan waxay ku dhahayaan $150 ay siinaysaa laba product aan ku soo raadinaya supplier-kooda oo kula soo negotiate gareynaya kula soo gorgortamaya kadibna waan ku soo gudbinaya meesha waxaan maraynaa ilaa iyo waxaan maraynaa $810 marka $150 qofka ugu hooseeyo oo freelancer.com hadda tagto account ka samaysato kadibna aad tiraahdo waxaan u baahanahay qof laba product iiga raadiya productiga ana haysto laakiin qof iiga raadiya Alibaba ayaan u baahanahay average intaas weeyaan 800 ayaa maraysaa laakiin still adiga waqti ayaa ka baxay waayo waqtiga ka baxay waxa weeyaan waxaan wadada adaa isku xirxiray mid walba adaa la rabaa gooni la xiriirto from domain gadashadii adaa la rabaa inaad samaysato hostingka adaa la rabaa inaad soo samaysato maaragtay listingkii maaragtay website ismihii qofkii website sameynayay ama qof asxaabtihiin ama qof taqaan ama qof kale in adiga la xiriirto adaa laga rabaa inta markaa ka soo tagto 800 ayaa hadda maraysaa alaabtii ku soo qaaday alaabtii listingkeedii ayaa hadda negotiationka ku sameeyay uu ku diyaariyay then alaabtii listingkeedii hadana Fiverr aad tagtay waxa uu tiri alaab listing u baahanahay qofka average-ka ah ugu hooseeya listingka one product wuxuu ku sameeyaa $125 ayuu ku sameeyaa adiga hadda rabto fiverr.com freelancer.com tag waxaan waa wax adiga indhaha ku arki karto wax ma aha saasa la yiri ma aha marka 125 marka ku darto 925 ayaa maraysaa product listing oo hal xaba weeyaan now kan product listing ku sameynayo oo shipping plan-ka Amazon account-kaada inuu tago weeyaan kadibna mataqaana invitation u dirto invitation-ka u dirto inuu Amazon account-kaada tago shipping plan wax la yiraahdo uu sameeyo oo supplier-ka si loogu diro mataqaana FNSKU-gi ama barcode-ka lagu soo dejin lahaa alaabta kadibna supplier-ka markii loo diro barcode-ki ay maaragtay approval-ka ku siiyaan kadib alaabtii ay ka soo diraan China oo Amazon ay u soo socoto then qofkan inuu Amazon account-ki tago oo uu sameeyo listing-ki weeyaan marka listing-ka uu sameynayo ayuu 125 ka qaadanaya one product marka asaga laakiin wali wuxuu ka rabaa sawirada inaad soo sameyso alaabta 9 sawir ay u baahan tahay product walbo background-ka lagu qaaday sawirka inuu background cad yahay size-kan inuu 1000 pixel by 1000 pixel inuu yahay ayaa laga rabaa sawirada la imaa uu ku leeyahay
then professional photoshop inaad shaqaalaysiiso weeyaan oo aad supplierka la xiriirto aad ka soo qaado sawiradii oo manual ah inaad ka soo qaado qofkaan aad u dirto Fiverr aad ka heshay kadibna mataqaanaa sawiradii aad tiraahdo edit garay photoshop ku sameey sawiro qurux badan ka soo saar 9 sawir soo sameey size-ka Amazon requirement-geedana mataqaanaa ku soo apply garay then qofkaas 9 sawir markuu ugu hooseeyo $50 ba ka qaatay waxaan ka soo qaadayaa kan ugu hooseeyan ka soo qaadayaa $50 professional high definition HD ayaa mataqaanaa ku heshay okay 975 ayaan maraynaa insha Allah xisaabtadan iga dhumin wali 975 ayaan maraynaa sawiradii ka soo qaaday waa list garaysay now product-iga labaad 125 kale iyo 50 kale oo sawiradii ka rabtaa marka laba wire package-ka anaga hadda aan cover garayno wuxuu ma aragtay ku sameeynaya laba product oo from A to Z weeyaan now qofka marka product-iga labaad marka list garay tiraahdo isla same process-ku maraya supplier-kii la hadlaya يعني supplier already waa dhameysay hawshiisa laakiin listing-kii iyo shipping-kii uu sameeynaya kadib wuxuu sameeynaya mataqaanaa inuu alaabta ku list gareeyo then 125 oo second product-iga ahayd iyo $50 oo photoshop-kii 9 sawir product-iga labaad ahayd ayuu ku sameeyay marka meeshaas 1000 iyo xoogaa marka mar raba xisaabta inaan sii wado 1000 markii gaartaba waayo meesha aan rabay inaan ka tuso weeyaan wali waxa ku sii dhiman Amazon sponsor ad ayaa ku dhiman oo ah in haddana qof kale oo expert in raadiso oo haddana aad tiraahdo alaabteeda Amazon ku list gareeyay sawiradeedu way igu jiraan waxaan u baahanahay xaysiin in Amazon gudaheeda ay igu dhex samayso Amazon sponsor ad keyword-yada Amazon aan ku xaysiin lahayn u baahanahay iyo alaabtina xaysiinta ii setup gareyso ayaan u baahanahay then taasna average another $200 ay kaaga baxayso go ahead check mataqaanaa upwork.com iyo fiverr.com meelaha ugu fiican laga helo weeyaan okay now 1200 ay isku soo fariisatay iyo adiga oo waqti badan aad u badan ka baxay oo waqtigaas oo ah ina waxaan oo dhan isku xirto isku xirto waqtigeedo dhan ka baxay ayaa ma aragtay heshay laakiin marka anaga naga qaadato maxay helaysaa 1200 lagama qaadayo waa mid koowaad midda labaad waxaas oo shaqo ah oo isku xirana ma sameeyaysid waxaas anaga already sameeynay teamkeena marka muxuu ka kooban yahay teamkeena wuxuu ka kooban yahay dhowr qof oo aniga mataqaanaa ii shaqeeya Idris Abadir Academy team ah oo hoos imaada company-geena ayaa jiro oo constantly aniga aan monitor gareeyo aniga aan mataqaanaa wax walba ka eego daily meeting aan qaadano maaragtay teamkan aan ku shaqeeyo inay hubiyaan qof walba ilaa aan ka qancino inaan shaqadooda mataqaanaa u dhameeyno teamkan waxay ka kooban yihiin marka teamkan waxay ka kooban yihiin from mataqaanaa horta Abadir Academy waxaan leenahay company kale oo partner ah oo abadirtech.com la yiraahdo oo aad booqan karto abadirtech.com waa company aan dhisnay oo website-yada maaragtay aan ugu talagalnay small business website-yada dhan aan package aan mataqaanaa siino haddaad Amazon rabin oo aan website kaliya rabta xataa waa ka iibsan kartaa abadirtech.com haddii aad tagto now abadirtech waxaan iibinaa domain-nadan ku iibinaa hosting-kan ku iibinaa business email-kan waan ku iibinaa now intaa marka aan ku iibinayno then waxaan isku dhaxdarnay abadirtech Abadir Academy waxaan mix ka dhignay dhanka website-ka tusaale marka anaga package-ka naga gadato package-keena 1200 ma aha wuxuu kugu cost garanayaa $500 ayuu kugu cost garanayaa oo one time ah that's it now $500 haddii aad mataqaanaa bixiso maxay helaysaa marka domain-kii anaga ku iibinayno $10 500 ka baxday already 490 anaga na soo aaday hosting-kii anaga ku iibinayna Abadirtech-aan ka iibinaynaa anada $70 halkaas nooga baxday ama $80 saasoo mataqaanaa ku baxday anaga maaragtay teamkeena wuxuu ka kooban yahay markaas qayb website-kii mataqaanaa samayso website-ka anaga ku sameeyno sawirada website-ka u baahan tahay business email-kii anaga ku sameeyno marka maxaa haysataa domain-kii 1 year ah hosting-kii 1 year ah iyo business email-kii 1 year ayaa haysataa marka cusboonaysiisanaysana waxay ka qaadanaysaa kaliya $80 ayaa sanadka cusboonaysiisan kartaa package-kaadii oo macal domain-kii macal wixii dhan wato marka maxaa lagu sameynayaa website-ka lagu dhisayaa business email-ka lagu sameynayaa loogada waa lagu sameynayaa about us waa lagu sameynayaa and then Amazon account-kaada iyo waxa la isku xirayaa iyo website-kaada si alaabta website-kaada ku jirto website-kaada looga iibsan karo Amazon-na looga iibsan karo okay kadibna anagoo isticmaalayno tools-ka aan haysano ayaan product-yo kula share garaynaa ilaa 10 product aan ku soo diraynaa 10ka product laba xabba ka dooranaysaa labada ka dooratay ayaan waxaan ku sameynaynaa Alibaba account-kan waxaan ku sameynaynaa Gmail ma aha waxaan ku sameynaynaa waa business email aan ku sameynaynaa business email-ka aan ku sameynay ayaan ku sameynaynaa waayo markaad eegto
warshada waxay door bidaan inta badan inay la shaqeeyaan shirkado ama business mataqaanaa small business inay la shaqeeyaan dan qof caadiga farqiga u dhexeeyna waxaa weeye inaad companygaada magac leeyahay inaad business email leedahay inaad mataqaanaa company structurekiisa iyo wax walba u dhisan yahay inaad tahay ayaa muhiim ah marka taa marka laga soo tago then maxaa kugu xiga alaabtii Alibaba account aan ku furnay alaabtii aan negotiationkaan bilownay warshadii inaan la gorgortano Alibaba account-kaada adiga waa geli kartaa business email-kaaga ku geli kartaa markaa gasho then Alibaba account-kaada fiirinaysaa sida aan mataqaanaa ula hadlayna warshadii then waxaan ku raadinaynaa product walba inaan 100 piece inaan kula negotiate gareyno shipping-kii rating-kii supplier-kii wax walba anaga taa qabanayno markaan taa dhameyno Amazon account-kaadi ayaa furanaysaa Amazon account in la furto waa very basic sababta aan dadka u dhahnana idiga soo furta waxaa weeye personal information kiina ma rabno inaan anaga aan faraha la galno sida magacaada iyo social security-gaada iyo address-kaaga iyo waxaada ma rabno inaan faraha la galno qofkii asaga dhaha mataqaanaa okay dhib ma laha waxaan rabaa cilad baa haysato iga caawiya mar walba anaga waan caawinaynaa halka waxaan u joognaa inaan ku caawino marka EIN numberka marka apply gareynayso iyo Amazon account marka furanayso personal information ayay ka rabaan sida mataqaanaa waxyaalaha aan soo sheego dhan marka saas darteed qofka waxaan dhahnaa videoyaan ka sameynay oo marka aad package-kan gadato lagu soo diraayo videoyadaas videoyo khaas weeyaan sida Amazon account-ka loo samaysto sida business email-kaada loo furo sida EIN numberka loo samaysto videoyadaas qof walba ma helayo kaliya waxa helayo dadka package-kan gata bisa ayaa helayaan marka that's why adiga u baahan tahay personal information-kaaga inuu adiga kugu ekaado oo hadhow anaga wax dhibaato ah naga soo gaarin ama qof anaga shaqaale noo ahaa oo naga tegey ama qof kale in mataqaanaa personal information-kaaga uusan dhibaato u geysan oo adiga kugu ekaado haddii xataa aad door bidda inaan ku caawino waxaan inta badan jecelnahay in aad mar walba aad groupka aan kuu samayno screenshot intaa kasoo qaado cilada ku haysato inaad soo dirto kadibna aan ku dhahno sidaa iyo sidaa samay adiga aad samaysato haddii aad kari weyso oo aad xal kala weydo then aniga personal ah ayaa samaynayo oo qof kale uma dhiibayo anigaa samaynayo that's why aan u hubinayo in informationkaada uusan qof kale gacanta ugal laakiin taas waa last optionka weeyaan ugu dambeeyo laakiin Amazon account inaa furato waa very easy weeyaan EIN number inaa apply garaysan waa easy labadaas adigaa laga rabaa waa tahay alaabtii waa kuu soo helnay waa dooratay supplierka negotiation-kaa sameynay listing product waa sameynay sawirada Amazon ulaheed waa sameynay alaabtii waa ku list gareynay Amazon sponsor ad-na waan kuu sameynay marka ogow wixii aan kasoo sheekeynayo dhan oo 1200 gaarayay oo dhammaystiran oo adiga aad waxba ka qabanin weeyaan waxa ma taqaanaa 500 kaaga baxayso laga soo bilaabo in company magaciisa lagu raadiyo ilaa in laga gaaro Amazon sponsor ad in lagu sameeyo marka waa package-kaas saa u dhammaystiran weey marka xagee ka bilaabaysaa waxaa ka bilaabaysaa customer service-ka telefoonada halkan ay ku leeyihiin ayaa la xiriiraysaa waxaa leedahay waxaan u baahanahay package-ka do it for me fadlan package-ka maxaa ku jira iyo maxaa lee qabanayaa iyo waqtigaas annagana ha naga dhuminin adigana ha iska dhuminin videoga daawo haddii aad ku qanacday listiga aan kuu soo sheegnay laga soo bilaabo company magaciisa in lagu raadiyo website-ki in lagu dhiso loogadii about us-ki domain-ki in lagu iibiyo hosting-ki business email-ki in lagu setup gareeyo alaabta email in lagu soo diro alaabtaas in Alibaba account lagu sameeyo negotiation-ki lagu sameeyo shipping plan-ki lagu sameeyo alaabta lagu list gareeyo sawirradii alaabtii keyword-ki title-ki description-ki Amazon account-kaadi in mataqaanaa la setup gareeyo alaabtii in la hubiyo China inay kasoo tagtay Amazon ay maatay USA ama Amazon UK ama Amazon Germany ama midka France midkay u socota alaabtaada mar walbo kadibna alaabtaadii markay live noqotana Amazon sponsor ad lagu sameeyo adigana reviews-ka alla imaato intaasoo dhan ayaa lagu qabanayaa marka wax micnaa ma sameynayso inaad tidhaahdo package-ka ii sharaxa maxaan helayaa kaliya waxaa videoga daawo haddii aad ku qanacdo customer service-ka la xiriir lacagta bixi dan markaa lacagta bixiso way soo inform gareynayaan way ii sheegayaan qofkaas package iibsaday waxaan kaaga baahannahay magacaada hore iyo magacaada dambe gmail-kaaga iyo telephone number-kaaga iyo waddankaad joogto intaasaan kaaga baahannahay sharciyadana waa inaad haysataa ahead of time inaad tidhaahdo haddaan raadinaya ma aha haddii aadan adiga passport haysan qof ehelkaaga ama asxaabtaada oo sharci haysto waa ku furan kartaa account-kiisa hadhow adiga kaaga markaa heshana waa ku bedelan kartaa mar walbo wax dhibaato ama laha hadday su'aalo jiraan aas leedahay videogan kuma jiro oo maaragtay waa ka dhex waayey fadlan customer service-keena soo weydii waxaa tidhahdaa videoga package-ka do it for me-ga waa daawaday laakiin su-aashaan ay igu taagan kumana jirto haliiga soo jawaabo haliiga jahil bixiyo markaa package-ka iibsato then WhatsApp group ayay sameynayaan ay igu soo darayaan haddii la yiraahdo inta hadda temporary ah WhatsApp group-yadaasaan ku shaqeynaa
laakiin system kale aan ka shaqaynaynaa oo mataqaanaa dadka automatically emailkooda aan usoo join garayn doono insha allah bal laakiin markaan soo galno waxaan qaadanaynaa waan kusoo wacayaa markaa packageka iibsato waxaan sirab garaynaynaa appointment 30 daqiiqo ah 30 daqiiqo waxaan ka wada hadlaynaa business plankaaga sidaan qorshaha ku bilaabayno waxaad target garaynayso alaabta adiga jecesha inaa iibiso alaabta aan kusoo raadinayno sidaan u dhisaleen businesskaaga ayaan ka hadlaynaa markaan 30 daqiiqo dhammeeno hawsha ku bilaabanayso haddii aad si fiican noola shaqayso oo aad messagedeena mataqaanaa markaan kusoo dirno aad respond garayso waxaan kaaga baahannahay aad markii kasoo jawaabto hawsha 2 to 3 weeks aan dhammayn karnaa haddii laakiin adiga waqti kugu qaadanayso oo maaragtay markii su'aal lagu soo weydiiyo lagu dhaho okay alaabta waa tana tee ku anfacday tee dooranaysaa waqti kugu qaadata 2 maalin 3 maalin kadib aad soo jawaabto haddana waqti wuu sii dheeraanaya mar walba aday kugu xiran tahay saa u soo jawaabto teamkeena waxay shaqeeyaan Monday to Friday ayay shaqeeyaan maaragtay dad ajaanib iyo dad Soomaali isku jira weeyaan laakiin customer service-keena waxay shaqeeyaan 7 days customer service-ka 7 days waa soo wici kartaa wax dhibaato ma laha laakiin shaqada actual-ka la qabanayo waxay socotaa isniin ilaa jimco ayay socotaa mar walbana update ayaa lagu siinayaa qof baa mataqaanaa u xilsaaran barnaamijkaada oo mar walba kula socodsiinaya meesha wax marayaan adigana laga rabo mataqaanaa inaad si joogto ah oo la xiriirto now 30 daqiiqo markuu noo dhamaado alaabtaada markaan listi gareyno oo Amazon sponsor ad-kaada aan sirab gareyno then another 30 daqiiqo kale haddana wada hadlaynaa aniga adiga kadibna waxaan ka hadlaynaa businesskaaga iyo sida uu scale gareyn lahayd iyo next step waxaa samayn lahayd ayaan ka sheekeysanaynaa insha allahu tacaala marka packagekan dhowr option haysataa optionka koowaad waxaa waaye inaa adiga aad barato oo adiga aad samaysato oo 500 ama 1200 aad save gareyso adiga aad samaysato waa option 1 option 2 waxaa waaye inaa Fiverr iyo freelancer.com iyo upwork.com iyo dad ajaanib ah inaad raadiso aad trust gareyso aad la shaqayso ilaa $1200 ugu yaraan inay kaaga baxdo optionka saddexaad waxaa weeyaan Abaadir Academy inaad u xilsaarto packagekaada then 2 product aan ku launch gareyno from A to Z adiga shaqadaada kaliya in noqoto inaad systemkana barato hawsha markay ku dhamaatana aad la wareegto dukaankaaga kadibna aad mataqaanaa haddii aad ku faraxsan tahay service-keenana qof kale aad noo soo recommend gareyso familkaaga asxaabtaada iyo mataqaanaa kamid ah now package-yada aan iibino way kala duwan yihiin package kala jiro oo 750 ah oo halkaan ku xigi doono arki doontaan asagana qaybta labaad wuxuu kaga duwan yahay kan package kala jiro oo 1500 ah asagana wuxuu kaga duwan yahay iyo package kale ayaa jiro iyagana arki doonto oo ilaa iyo 4000 ilaa 8000 dollar gaarayso mid walba midka kale waa kasii fiican yahay kan 500 waa kan basic ah weeyaan waa kan qof walba oo raba inuu lugaha biyaha la galo oo xoogaa qoyaana taabto oo Amazon ugu yaraan ma aan launch gareyn ama product kuma haysto waxaasi raba mataqaanaa inuu xag iska dhigo uu ku bilaabi karo kadibna mataqaanaa uu qaadan karo inuu productyo badan launch gareeyo remember goalkaaga hadduu noqdo inaad 6 bilood gudahooda 5 product aad ku launch gareyso 6 bilood gudahooda 5 product aad ku launch gareyso product walbo haddii aad minimum kaliya ugu yaraan $1,000 aad profit bishii ka samayso product walbo halkaas $5,000 ayaa maanta kaa soo gelayso waana wax very basic Amazon hal product walletkaas kaliya haddii aad maanta ku iibinayso in mataqaanaa profit fiican haddii $10 profitkaaga uu yahay inaad $1,000 ka samayso aad ay u fududahay haddii xataa aad tiraahdo okay product walba aan 500 profit ka sameeyo okay still $2,500 ayaa bil walba ka samaynaysaa easy ah marka now muhiimadda meesha annaga aan dadka fahansiino isku dayna waxaa weeyaan warshadda alaab badan ha ka iibsan lacag badan iyo kaaga bixin warshadda why sababta waxaa weeyaan mar haddaan warshadda kuu soo helno oo 2 product aad ka iibsato adiga iyo warshaddii waa isku xirantihiin waayo meeshii uu gorgortanka iyo wada hadal ka socday Alibaba account-kaadii weeyaan adiga kii lagu sameeyay weeyaan meeshaas ka socday marka maadaama halkaa ka socday warshadii adaa la wareegayo adaa la xiriirayo haddaa productyo kala rabto inaad ka dalbato haddii aad mataqaanaa aad rabto passwordkaada bedelinaysa adiga warshadaas dhexdiina ku jirto malaha markay alaabta mataqaanaa kuu soo diraan now warshada markaa $100 piece isoo dir aad tiraahdo ay kuu soo diraan 100 piece markay kaasii dhamaanayso Alibaba account-kaada tigaysa waxaa leedahay 100 kale kusoo dir marka warshada lacag badan ay kaaga bixin lacagtaada badan ha ahaato marketingka Facebook ad-ka Google ad-ka family and friends-ka mataqaanaa aad la wadaagayso alaabtaada website-kaada aad xaysiisato brand-kaadii aad build garayso Snapchat ku xaysi Instagram ku xaysi mataqaanaa ku xaysi Clubhouse ku xaysi maaragtay Facebook Google ads-ka YouTube ad-ka waxyaalahaas oo ku xaysi
haddii aad package xaysiina ah rabto inaad iibsato oo waxaas oo dhan lagu xaysiinayo alaabtaada lagu xaysiinayna package kala jiro oo mataqaanaa isla halkan aad ku arki doonto aad ka iibsan karto oo marketing keliya ah oo shaqadiisu tahay search engine optimizationka ay tahay mataqaanaa Facebook adka Instagram adka iyadana mataqaanaa ay teamkeena kuu samaynayaan waa tahay insha allah warka ma raba inaan badiyo saa ujeedaan waxaa weye packagekan aadan uga fiirsanay aadan uga fikirnay valuegiisa si fiicanaan u eegnay waxaan garanay dadka haddaan siino value badan haddaan siino in mataqaanaa inuu u baahneen inaan marketing aan samayno oo qof walba markuu asaga ku qanco uu maaragtay qofka labaad keeni karo ama asagoo package labaad iibsan karo waa tahay marka insha allah intaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii ilaah yidhaahdo customer servicekeena la xiriir mar walbo lacagta bixi kadibna hawsha ha lagu galo ha lagu dhameeyo insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu